wardegdega Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland ayaa amar buuxa ku siiyay dhammaan ciidamada Jubbaland inay heegan buuxa ay galaan isla markaana isku diyaariyaan dagaal ka dhan ah dowladda federaalka ee Soomaaliya kadib markii la ogaaday qorshaha Villa Soomaaliya ay ku doonayso in qaar ka tirsan deegaanada Jubbaland halkaas ay ka hirgeliso doorashada qof iyo codka dhammaan ciidamada ee Jubbaland ayaa lagu wargeliyay inay heegan buuxa ay galaan isla markaana isku diyaarshaan dagaal ay ku wajahayaan ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya halka oo la sheegay in dowladda Soomaaliyeed ay qorsheynayso inay ka dhacdo deegaanadaasi doorasho qof iyo codba sida deegaanada kale sida Koonfur Galbeed iyo Galmudug iyo Hirshabeelle ay ugu dhex doonaan waxaase la sheegayaa in Villa Soomaaliya ay qorsheynayso in maamulkaasi ay u dhiso Cabdirashiid Janan oo maalmihii la soo dhaafay oo gaaray deegaanada ka tirsan ee halkaasi ee Jubbaland ee dowladda Soomaaliya ay qorsheynayso inay ka hirgeliso doorasho qof iyo cod iyo saraakiil kale oo kala duwan oo ka socota dowladda Soomaaliya ayaa halkaasi gaadhay si halkaasi looga hirgeliyo doorashada qof iyo cod ciidanka Jubbaland ayaa la sheegay in Axmed Madoobe uu ku amray in heegan buuxa ay galaan isla markaana isku diyaarshaan dagaal ka dhan ah dowladda federaalka Soomaaliya iyadoo la sheegayo in hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe uu sarraali ka ahayn marraba qorshaha dowladda Soomaaliyeed ay ku doonayso in doorasho qof iyo cod halkaas ay ka hirgeliso dhinaca kalena waxaa la soo tabinayaa in dowladda Soomaaliyeed ay qorsheynayso doorashada qof iyo codka kadib in halkaas ay u dhiso Cabdirashiid Janan isla markaana la doonayo in maamulka halkaasi laga aasaaso ay gali doonaan magaalada magaalada caasimad fadhiga u ah ee dowlad goboleedka Jubbaland ee Kismaayo in halkaasi ay galaan iyadoo la doonayo in halkaasi ay kala wareegaan Axmed Islaam dhaqdhaqaaqadii ugu dambeeyay ayaa ka socda gudaha Jubbaland ciidamadii ee Jubbaland ayaa galay heegan buuxa iyagoona ay u muuqato in haatan ay u diyaar garoobeen dagaal mar kale ay la galaan dowladda federaalka Soomaaliya halka dowladda Soomaaliya qorshaheeda deegaanadaasi ayadana ay wadado isla markaana ay doonayso in halkaasi ay ka hirgeliso kaliya doorashada qof iyo codka sidii ay ugu qabsoomi lahayd ee Jubbaland iyadoo qaar ka tirsan deegaanada halkaasi ay u joogaan ciidamada taabacsan ee dowladda federaalka Soomaaliya isla markaana ka shaqeynaya sidii doorashada halkaasi si nabdoon ay ugu dhicleed dhaqdhaqaaqadii ugu dambeeyay ayaa halkaasi ka socda waxaase la sheegayaa in Axmed Islaam saacadii la soo dhaafay oo kulmo gaargaar ah uu la qaatay saraakiisha ciidamada kala duwan ee Jubbaland kuwaasoo looga arinsanaya xaaladda ka soo korortay gobolka ee dowladda federaalka Soomaaliya ay ku doonayso in halkaasi ay ka hirgeliso doorasho qof iyo cod wixii arrinka ka soo kordha halkaan oo TTN Somali TV ayaad kala socon doontaan waa anigu Cali Shajaac mahadsanidin